Baartadii koowaad sheekadan waxay noo maraysay ayagoo saaxiradii dabagalay. Saaxiradii waxay gashay god dab yar. Walaal Jasiita waxay u muuqataa in saaxirada ay ku hayso nimanka tuulada oo dhan godkan. Inakeen aan ugu galnay godka. Labadooduba waxay galeen godkii saaxiradii ay daba socdeen. Lalaan iyo Jasiita waxay arkeen dad ku nool godka. Walaal Jasiita wuxuu yiri waxay u egtahay rag tuulo isku mid laga keenay inay wada qodayaan. Laakiin maxay u qodayaan? Waxay dhaheen aan u tagno ayaga si aan wax uga ogaano arrintan. Kadib waxay gaareen meeshii ay qodeen dadkii. Tuulada ayaa la yaabay markii ay arkeen laba haween. Waxay dhaheen yaad tihiin labadiinu. Sidee ku imaateen godkan? Labadiinaba dumar baad tihiin. Miyaadan ka baqayn kuwan? Waxay ku soo celceliyeen kuwani waa haween. Labadiinaba halkan ka taga. Haddii saaxiradu timaado, labadiinaba waad iman doontaan cabsida si kastaba ha noqotee. Mid ka mid ah nimankii wuxuu yiri waad saxan tahay walaal. Ilaalinta haweenka waa mas'uuliyadda annagana saaran. Inakeen waxaynu ku qarinaa meel xafidan. Jasiita wuxuu yiri muxuu walaal Ilaahay kuu siiyay dhiirnaan iyo geesinimo haddaydan tuseenin. Maxay saaxiradu idiin adoonsanaysaa? Rag baad tihiin marka hore u socda si aad u tustaan geesinimadiina saaxirada. Walaal Lalaan Jasiita wuxuu ku yiri maxaad samaynaysaa? Waxaanu halkan u nimi inaan saaxirada la dagaalanno. Maya walaal Jasiita, saaxiradu waxay si fiican u saameynaysaa nimankan. Waxay moodayaan in dumarku keliito ayaga. Waxay had iyo jeer ilaawaan in haweenku yihiin dhasha carruurtooda. Saaxiradu waxay si sax ah ula dhaqmaysaa sida adoomada oo kale. Nimankaas isqarxinta leh ayaa u qalmataan. Kadib markii ay cabaar wada sheekaysteen oo ay hadallo isdhaafsadeen ayaa raggii waxay dhaheen kuwani dumar maahan ee waa rag. Waxayna iska dhigeen dumar. Haa waa sax anagu waxaan nahay rag ee dumar ma nihin. Si aan halkan u soo gaarno waxaan iska dhignay dumar. Waxaana isticmaalnaa khiyaanada dumarka. Lalaan iyo Jasiita waxay la soo degeen qorshe ah in ay nimankan ka saaraan meesha si ay u baxaan gumaysiga iyo adoonsiga. Naagta saaxirada ahayd waxay ku dhaheen waa inaad iska dhaaftaan qodida godkan aad qodaysaan iyo adoonsiga ay idinku wado. Qorshe ayaan idin haynaa. Dhagaxyuun waan inaad ururisaan si aad ugu owdaan godka ay ka soo gasho kana baxdo. Waa inaad iskaga baxdaan godkan anigana isoo raacdaan. Kadib markii ay bulshadii soo raacday Lalaan iyo Jasiita waxay go'aansadeen in ay naagta godka ku owdaan si ay mar dambe uga soo bixin oo u guumaysan dadkan masaakiinta ahaa. Godkii ayaa lagu owday naagtii saaxirada ahayd. Guul ayay ku gaareen. Waxay ka soo baxday meeshii waxayna timaaday godkii. Kadib waxay aragtay in uu ku daboolan yahay. Hanjabaad ayay ayadii samaysay laakiin way dhageysteen. Dadkii ay guumaysan jirtayna bartii ayay uga soo dhaqaaqeen waxayna soo raaceen Lalaan iyo Jasiita. Lalaan iyo Jasiita waxay soo kaxeeyeen afartii rag. Waxay keeneen magaaladii waxayna u keeneen naagahoodii. Aad ayayna uga mahadceliyeen. Halkaasna waxaa uga soo laabtay ixtiraamkii magaalada ay ku lahaayeen. Halkii markii hore la dhihi jiray fuliyiin, markii dambena waxaa loo bixiyay geesiyaashii tuulada. Saaxiradii meeshii ayay maxbuusad ku noqotay. Sheekadeennina halkaas ayay noogu soo dhamaatay.